wanqasha furitaanka xafiiska Somaliland ee Australia waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay munaasabadan furitaanka xafiiska reer Somaliland kaasoo wax badan qabanaya oo uu hormood ka yahay Maxamed Xuseen oo sharmaarka loo yaqaan ama Ballishire runtiina ah nin firfircoon oo aad iyo aad ugu habboon hawlahan يعني ما garanaysa xiriirinta Somaliland iyo jaaliyadaha ku nool Australia marka waxa weeye waxayna habboon inaguna inaynu la shaqeyno aynu taageero yani moral iyo si kastaba farxad weyn ayay ii tahay aniga iyo inta ka soo qayb gashayba inaanu caawa halkan goobjoog iyo maragba ka noqono xafiiskii ugu horeeyay ee noocana ee ay leeyihiin reer Somaliland in caawa halkani furitaankiisa aynu ka soo qayb galno kolka hore Ilaah baa mahad leh laakiin dadaal fara badan iyo shaqo badan iyo orod badan ka bacdi Ilaahay wuxuu ku guuleeyay xafiiskaasi inuu furmo oo sababtiisa lahaa sharmaarke Maxamed Xuseen oo ku magac dheer sharmaarke ama Ballishire aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya shaqo aad u muhiim ah oo cid walba saareyd ayuu hawl badan buu dadka ka furtay marka waxaan jeclahay inaan halkan ka dardaaran uga jeediyo community-ga reer Somaliland iyo guud ahaanba inta soo af Soomaaliya ku hadasha waayo marka xafiis la furo magacuu doona ha wato wax laga yaabaa inay dad badan ka faa'iideystaan oo wax u qabto waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan wadan qurba ayaynu joognaa waxaan hubaa intaan ka warqabo cid ka caawisay Maxamed qabanqaabadiisa haday dhinac dhaqaale tahay iyo haday dhinac awladba tahay inay aad u yar tahay haday jirtan inay aad u yar tahay marka waxa loo baahan yahay waxa weeyaan kulkay hawlaha noocan oo kala yimaadaan in cid waliba ku baraarugto oo laga qayb qaato haday ahaan lahayd dhinac dhaqaale iyo dhinac taageeraba madaxda xisbiyada ururada maxalliga odayaasha haweenka iyo dhammaan martida sharafta leh ee halkan ka soo qayb gashay marka ugu horeysa waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh inta ka bacdi waxa sharaf weyn ii ah aniga oo ku hadlaya magaca xisbiga wadani Somaliland National Party laanta Melbourne ahna gudoomiye ku-xigeenka jaaliyada Somaliland ee gobolka Victoria in aan ka soo qayb galo daafurkan loo sameynayo xafiiska cusub ee uu yeelan doono Somaliland Mission of Australia kaasoo ah mid loogu farxo sababtoo ah wuxuu kor u qaadayaa magaca dadka reer Somaliland ee ku dhaqan Australia iyo raadinta aqoonsi raadiska ee uu ku kabsan lahaa bulshada aynu ku noolahay waxaan xafiiskan suurto galiyay oo mahad iska leh Master Sharmaarke oo ah nin had iyo jeer u jaban inuu bulshadiisa si hagar la'aan uga shaqeeyo wuxuu noqon doonaa xafiiskani mid u shaqeeya dhammaan ummadda reer Somaliland oo dhan inta haddaan kaga baxo inta xafiiska anigu imika waxaan ka imiday socdaal aan kaga imiday Somaliland wadankii Somaliland aad iyo aad buu wanaagsanaa aad buuna u fiicnaa haddii aad eegto xagga waxbarashada meel heer sare u mariyay tagay jaamacadda Camuud 2,000 oo arday baa dhigta 2,000 ee arday marka ay ka qalin jabiyaan de waxay u shaqeeyaan wadanka inta badan u shaqeeyaan waxaad moodaa dadku inay aad u dadaalayaan oo ay maxaan ku idhahdaa meel wanaagsan marayaan waxa kale oo jirta haddaad eegto xagga dhismaha infrastructure-ka wadanka aad baa loo dhisaa wadooyinka la dhisaa waxa la dhisaa maxaan ku idhahdaa guryaha marka noloshu aad iyo aad bay u wanaagsan tahay hadal badan oran maayo marka dhamaantiin dadkiina sharafta leh ee ka soo qayb galeen waad mahadsantihiin jaaliyada Somaliland jaaliyadaha kale intaba waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen warbixintaa uu inaga siiyey dalkiina runtii waa mid loo baahnaa oo ah tii ugu dambeysay weli waxaynu ku guda jirnaa hadalladii xisbiga wadani waxaan hadda u yeedhayaa xogayaha guud ee gobolka Victoria waa Mr. Daahir Faarax anigoo ah Daahir Faarax oo ah xogayaha guud ee Melbourne ee xisbiga Somaliland National Party marka hore halkan ka salaamaya dhammaan marti sharafta halkan isugu timi ee leh haween odayaal xisbiyo dhalinyaro iyo mataqaanaa dadka loo marti gaar ah waa salaamatiin mar labaad kulli xagga xisbiga wadani haddii aan u hadlo gudoomiyahayga ayaa jooga oo warkii xisbiga si fiican u dhibay isagoo waliba fresh oo daraya oo imika ka yimid dalkii waxaan kaliya ku darayaa in anagu aan marka hore aan taageersanahay aad iyo aadna u soo dhaweynayno furitaankan xafiiskan noqon doona safaaradda Somaliland ee Australia aad iyo aad waxaan ugu tahniyadinayaa Mr. Maxamed Xuseen Balishire dadaalka dheeraadka ee uu sameeyay runtii sidii raggii hore sheegeenna si gaar ah isagu isu xilqaamay oo mataqaanaa tirigeliyay inuu bal sameeyo xarun Somaliland oo safaarad ah halkan uu ka sameeyo aad iyo aad ayaan ugu tahniyadinayaa Mr. Balishire Mr. Balishire Ambassador Balishire wuxuu noo tusay maanta inuu noo bilaabo xafiis maanta ay ku mataqaanaa magaca Somaliland halkan ayuu ka furay jamciyadda Somaliland halkana waxaan ka doonay support anagu dhinacayagii waanu bilownay laakiin waxaan doonayaa xukuumadda Somaliland iyana wixii dhinacooda looga baahnaa haday noqonayso dal to dal iyo haday noqonayso mataqaanaa wasaaradda arrimaha dibadda to wasaaradda dibadda wixii ku xidhan ee xafiiska ka dhiman inay ka soo dhamaystirto ayaan jecelahay oo u gudbinay fariinta xukuumadda Somaliland madaxweynaha Mr. Maxamed Axmed Maxamed Silaanyo iyo wasiirka arrimaha dibadda labada ay gudbinayaan marka waxaan leeyahay qaybtii ka soo baxay anigoo stage-ka ugu yeedhi doona xubin ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga wicid waa Marwe Khadra Ismaaciil kusoo dhawo stage-ka halkan horta waxaan rabaa inaan jaanis ka faa'iideysto oon salaamo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Maxamed Axmed Maxamuud Silaanyo iyo marwadiisa qaaliga ah Marwe Aamina Waris waxaa kaloo rabaa halkan inaan ka salaamo madaxda qaranka Somaliland ha ugu horeeya gudoomiyaha xisbiga Ucud Engineer Faisal Cali Waraabe iyo musharaxa madaxweynaha aqoon-yahan Jamaal Cali Xuseen waxa kaloo rabaa halkan inaan ka salaamo gudoomiyaha xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Ciro waxa kaloo rabaa inaan dhammaan idin salaamo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkan caawa waxaynu iskugu nimid inaynu daahfurno xafiiska cusub ee Mission Australia wasan Somaliland Australia waa hadaanu nahay xisbigaas Ucud ee laanta Australia waxaanu ku garab taaganahay Sharma Arke Balashire wax kasta oo wadankii wax loogu qabanayo dhamaantayo waxaana leeyahay well done Balashire assalaamu calaykum aad iyo aad bay u mahadsan tahay Khadra oo ku hadlaysay xisbiga Ucud haddana waxaynu ku soo dhaweynaynaa stage-ka gudoomiyaha xisbiga Kulmiye oo runtii safar dheerna soo maray oo sidaan filayo inuu uga yimi New South Wales waxaan leeyahay ku soo dhawow Xasan Axmed Maxamed Halac waddanka la yiraahdo Somaliland oo isla qaam self service qofku keligii sacrifice u sameeyo inuu riixa mana rabo inaan ka hadlo mawduuca oo saaxiibkan uu deynaya muddadii 3 sano wax badan baa qabsoomay honestly aad u badan waana ku mahad Ilaahay baan ugu mahadinayaa waddan dahan oo wanaagsan ayuu degannahay in kasto inagu ogeeyno dadku inta badan ma dhaxgalno society-gan aan u nimin just inuu wax qofku markuu spirit iyo wax qabo inuu qofka la taageero wanaagsan haddii ku dhegno in kasto aan mawduuc cajiib East Africa Soomaalida degan oo dhan in haysto problemku inuu wala haysto oo iminka dhowr qodob uu ka dhawaajiyay ragayga horeeyay qofka hadduu dadaal leeyahay waqti hayo waa ceeb ay kugu tahayba war wax buu ka furtayba qofkan qof wanaagsan wax ka furtay weey taageer maybe kala mabda'tiin laakiin wax wanaagsan ma wada qofku inuu gartaa waxaan ariga iyo xoolaha kaga duwanahay waxa weey aqliga
laakiin maanta waxaanu arkaynaa honestly Soomaaliland u arkaysa u badan tahay in inta badan eegno uun wixii oo waxaan ugu ceeba wixii anagoo aqoon leh inuu ibedeli karo qof maqaayad fadhiya oo oranaya sidaa iyo sidaasa inagoo reer inagoo sidaasa ninkaa ma jeclin ama office-ka ma furayno ama dowladda saasi ku xuntahay aan is weydiinay question mark why maxaa wanaagsan madaa bedelaya maxaad haysaa marka aad waxaan kulligeen baan aniguna nafteeda ugu dardaarmaya inaan wax qabadka iyo collaboration-ka aanu badino wassalaamu calaykum waraxmatullahi buu mahadsan yahay gudoomiyaha xisbiga kulmiye oo kelmadda inoogu soo gabagabeeyey kelmadihii xusbiyada runtiina aan aada ugu faraxsanahay inay kelmadihii xusbiyadu intaa inoogu dhammaadaan oo intii xusbiyadu dalka ka furmeen wuxuun baa la arki jiray xoogaa iyadoo laisku yaro tuurtuurayo caawa markii lagu yihi barnaamijka xisbiyadina way ku jiraan waxaan isiri war malaha kala qabtaa meesha ka dhici doonta marka si qurux badan oo maaragtay wanaagsan bay inoogu soo gabagabeeyeen ujeedada runtii aanu furna xafiiskan waxa weeye markii aan ogaanay wadankan inuu wax weyn ka tari karo baahiyaha ka jira Somaliland hadday noqoto xag ganacsi xag maalgashi iyo xag siyaasadeed intaba iyo xag caawimo mataqaanaa gargaar caalami intaba waxaanu isku daynay oo la sameeyay xiriir wasaaradda arrimaha dibadda ee Australia waxaana ogaanay in markaan la xiriirnay muddo 5 jeer ka badan in ay wax badan ballan qaad noo sameeyeen isla markaasna aan kula xiriirina hab jaaliyad ahaan markaas aan ogaanay si aanu u kasbano dad waaweyn oo mas'uuliyiina ama hay'ado doonaya dalka inay maalgashi ku sameeyaan inay noqoto markaa xafiis in kan laga iyagleelo oo laga hirgeliyo taas oo aan kala tashanay dowladda Somaliland oo aan wargelinay isla markaasna ay arkeen halkan ay wasiir yimaadeen markaasaasna ay ku garawsadeen inay tahay muhiim isla markaasna oo tahay wax loo baahan yahay saas ay runtii xafiiskan ku yimid والله horta runtii Somaliland nabadgelyada ka jirta iyo waa wax qof walba ka warqaba maanta dowladda Australia waxa tagay safiirkeeda u jooga Kenya fadhiya ayaa Somaliland soo booqday dowladda wasaaradda arrimaha dibadda Australia markii aan hadda halkan aan booqasho la yeelanay waa inoo sheegeen ana waa ka warqabnay taas waxay sahashay in dad badan ama shirkado badan oo Australian ay mataqaan wadanka ku dhiiradaan oo aadaan waxa kale intaas dheer in wasiirka macdanta iyo tamarta Somaliland Xuseen Cabdi Caale halkan uu kula wasiirka arrimaha dibadda ee hore Australia Bob Carr iyo madax kale oo dowladda Australia kamid ah sida wasiirkii mataqaanaa tamarta ee dalka Australia la yiraahdo in Gary Gray isla markaasna ay balqaadi badan iyo isku xiriir iyo fiican inuu furmo markaas ay noqoto in la sameeyo kulan kale oo la qaatay wasaaradda arrimaha dibadda ee Australia shirkadaha mataqaanaa maalgashiga iyo macdanta ee dalka Australia ka howlgala markaas saas ay horta waxa la gartay in ay tahay muhiim in xafiiskan laga hirgeliyo dalka Australia wax qabadku waa waxa xafiiska loo furay dabcan wax qabadku runtii waa fara badan yahay oo maanta lagu soo koobi karo maaha waxa aan runtii ku tala jirnaa in haddii alla idmo mataqaanaa aanu geeyno wadankii mataqaanaa mas'uuliyiin ka mid ah dowladda dalka Australia hadday noqoto xildhibaano hadday noqoto wasiiro hadday noqoto shakhsiyaad kale oo doonaya in ay wadanka soo ogaadaan amaba shirkadaha rabo wadanka in ay maalgashi ku sameeyaan sida hadda shirkadaha xiriir noo wada socdo hadda mataqaanaa aanu kulan wada yeelanay xafiiskan wuxuu fududeyn doonaa in waxyaalo badan uu mataqaanaa hirgeliyo in uu dad mas'uuliyiin kale oo Somaliland kamid ah oo ka mid yahay dabcan madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Silaanyo in uu dalkan soo booqdo xafiiskan hadda hawshaas oo ku jiro isla markaasna aanu isla eegayno waqtiga ugu munaasabsan ee madaxweynuhu uu iman karo dalkan arrinkaas oo wasaaradda arrimaha dibadda Australia mataqaanaa aanu la wadno oo ay mataqaanaa hawshaas ay midana la wadaan markaas waxaasina ay dhanka ka diyaar garoobaan waxa noqonaysa marka inaanu gudbino madaxweynaha casuumadaas
isla markaasna waqtigiisa uu fiirin doono mataqaana ku munaasabka aynu waddankan. hadda waxaan u yeerayaa cabdirasaaq xuseen maxamed oo ku magac dheer shiino. dhammaan waan salaamayaa martida sharafta leh, guddoomiyaasha xisbiyada, dhammaan reer Somaliland iyo jaaliyadaha kale ka soo qayb galay. gaar ahaan salaam waxaan u gudbinayaa maxamed xuseen Sharmaarke oo nin saaxiib anahay. aadna ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo daahfurkiisa xafiiska la furayo Somaliland. waxaan rabaa hadalkayga inaan ku bilaabo taageero waa wada leenahay Somaliland, inaanu taageerna waajib bay nagu tahay. mas-uul Somaliland ka socdaana oon la kulmo la fariisana Faysal Cali Waraab oo ahaa nula casheynay nin aad magaranaysaa waqti horena aanu hore isu naqaanay oo magaalooyin kale waagii Soomaaliya aanu iska naqaanay, laakiin markaan nin adeerkaygu ahaa. laakiin waxaan ka doonaynaa aynu hoosna eegno waddan baynu ku nool nahay. No one knows how long it's gonna take us, so let's see the councilska, MPyada, registerka, in xisbiyada xataa kala galno, inaynu doorasho isu istaagi karno, inaynu waxayli kaloo kale bal masalkeenana aynu halkan ku dayno. marka intaas aad kaga dardaarmayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Sharmaarke horta waxa weeye waa nin hawlkara, waa nin daacada, shaqada uu qabanayo wuu garanayaa waxay tahay. Sharmaarke markaa muddo sanad ama 2 sanadood ku dhow ayuu ka shaqeynaya halkan. dabeetana shaqadii uu qabtay waxay ahayd shaqo muuqata oo South East-ka dadkii markaa ku noolaa ay wada qirayaan wixii ka qabsoomay waqtigii imika 2 sanadood ka hor ama 3 sanadood ka hor halkan markii uu ka ahaa guddoomiyaha jaaliyadda Somaliland. Sharmaarke markaas wuxuu ku guuleystay inuu isku xiro markii ugu horeysay councilska South East-ka degan in ay xaflad iyo maxaan ku dhahay barnaamij habaysan ay u soo qaban qaabiyaan dadka hal muslimiinta ee halkan degan, dabeetana ay ciid u soo bandhigaan markii ugu horeysay. waxaa ka soo qayb galay markaas oo aan xasuustaa 3 council baa ka soo qayb galay. xafiiskan imika cusub waxaan qabaa Sharmaarke inuu wax fara badan ka tari doono. anigoo ku kalsoon kartidiisa iyo aqoonta uu adeegsado. waa nin social, waa nin dadka dhex gala, waa nin jecel inuu gaadho meel hore. rasuulku wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam saxaabiga jaliilka ah ee Mucaad ibnu Jamal: yaa Mucaad, ittaqu llaha xaythumaa kunt wattabici sayi'ata xasanatan tamxuha wa khaaliqi nnaasi bikhuluqin xasan. Mucaadow buu yidhi waa tegaysaa oo ardul Yaman ayaa tegaysaa. saadka iyo sahaydan ku farayaa waxay tahay Rabbi subxaanahu wa tacaalaa inaad ka cabsato, ood weliba kaga cabsato haddii aad bannaan joogto iyo haddaad buur saaran tahay iyo haddii aad hurdo iyo haddii aad jiiftaba, xaaladahaaga oo dhan. waxaa kaloon ku farayaa ibnu aadam baynu nahay oo waa dambaabaynaaye haddii dembi kaa dhaco wanaag raaci ayada ayaa masaxayse. If only all of these women could be given such a chance to work hard and deliver, then the world would be in a better stage. And ladies here, you have that chance, and I'm pretty sure you're doing a lot of work. Sharmaarke has asked me to say something, and I'm going to ask your forgiveness. At the moment, all I can really say is a couple of words in Somali. I hope to learn more. But please forgive me. Wa hubal in Somaliland. Halayso agorsi.
yahay xijiri cuslaayo ayliyo xanuunkii midabka cagaarkuna carrahoodana weeyaan waxaa runtii farxad iyo caawa inaynu iskugu nimaadno xafladan aynu ugu dabaaldegayno amaba aynu ugu damaashaadayno furitaanka xafiiska Somaliland Mission Australia waxaan jeclahay ugu horeyn inaan runtii u mahadnaqo dadweynaha sharafta leh ee ka soo qayb galay caawa xafladan waxa aan jeclahay caawa inaan halkan uga mahadnaqo dadkii soo qaban qaabiyay xafladan quruxda badan gaar ahaan gabdhaha reer Somaliland waxa kaloo halkan ka salaamay iyagana fanaaniinta reer Somaliland ee iyaguna caawa halkan ka soo qayb galay iyo dabcan haweenka iyo dhalinyarada odayaasha intiinaba waxaan si gaar ah u salaamayaa martida kale ee qaaliga ee walaalahayga Soomaaliyeed ee iyaguna waqtigooda qaaliga noo soo huray ee meelaha fog nooga yimid aad baan dhammaantiin idin wada salaamayaa runtiina waxay noo tahay farxad weyn oo aan la soo koobi karin intaas haddii aan ka gudbo waxaan jeclahay in aan halkan dabcan aan ka sheego waxoogaa yar oo ku saabsan barnaamijka ama sababta xafiiskan iyo baahida keentay in la furo xafiiskan run ahaantii waxa oo furmaysaad ka warqabtaan maanta laakiin si jiritaan ahayn oo volunteer ahaan ay u shaqaynayay oo u jiray laakiin in maanta xafiis ay Somaliland yeelato oo dalkan Australia dabcan qaarad ah oo meelo badan oo Europe haddii la qiyaaso maanta ka weyn laakiin nasiib darro aan laga warqabin Australia taas oo keenta wasiirada ka yimaada Somaliland ee dalkan ku soo casuuno oo dhamaantood haysta baasaboorro Mareykan iyo Yurubiyaana oo meel walba adduunka maray oo soo wareegay in ay maxaan ku dhahdaa aan dalkan wali arag taas marka anaga waxay nagu dhiirigelisay in aanu sidii u baxno nooc meel tabliiq oo kale oo aanu gaadhno wadankii oo aanu cid walba la xiriirno oo aanu dabcanayn markaas dalkan la soo gaaro oo dalkan la yimaado oo la barto oo la arko aniga dabcan dadka kale faraha badnaa ay hawshan igala shaqeeyay ma hawshan ila galay runtii waxaan aaminsanahay in horta wixii aanu ordeyna ilaa al'aan aanu weli ku jirno tabliiqi laakiin aan rajaynayno in maalin dhow si fiican loo baran doono Australia oo wadanka noqon doono wadan sida Ingiriiska loo tago ama Mareykan iyo meelaha kale loo imaado isagana waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa dadkii suurtageliyay ee xaq dhaqaale haday noqoto iyo xaq kale taageeraba so far gacanta ka geystay mataqaanaa xafiiskan gacanta ka geystay waxaan ugu horeysiinayaa Ayman Yusuf Xaaji Aadan oo runtii aad u garab istaagay xafiiskan dhaqaale weyn oo culusna ka gacan geystay aad ayaanu runtii ugu mahadnaqaynaa waxa kaloo isagana aan aad u salaamaya oo aadna isna ugu mahadnaqayaa saaxiibkay Cabdullaahi Aadan Ibrahim oo isaguna aad runtii noo taageeray oo wax badan nala qabtay gacan ka geystay xafiiskani waxa uu la wada shaqayn toos la leeyahay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Australia ama loo yaqaan Ministry of Department of Foreign Affairs and Trade waxa aanu kulamo la yeelanay muddo hadda laga joogo 6 jeer waxaanu kulanay wasiiro waxaanu kulanay mas'uuliin kale oo ka tirsan dawladda Australia run ahaantii waxa weeye wadan very welcoming ah oo jecel inay accommodate gareeyaan ama cid kasta oo doonaysa in ay dalkan wax ka noqdaan amaba yani that sort of mataqaanaaye motivation la yimaada inay garab istaagaan wax la qabtaan in xafiiska Somaliland Mission Australia muddadii 3 bilood ama 4 bilood ugu dambeysay inuu qorsheynayay amaba uu ku jiray oo hawshaasna uu waday sidii Dr. Edna Aadan Ismaaciil loogu nominate gareyn lahaa inay ka qayb gasho amaba loo doorto awardka qaaliga ah ee adduunka laga bixiyo bil sharafkaas loo yaqaan Nobel Peace Prize adna waxaanu isku aragnay Hargeysa dhowr bilood ka hor kulan baanu qaadanay dawladda Somaliland ilaa madaxweynaha ilaa wasiirada dhammaan waanu isku wada aragnay arrinkaasna wuxuu noqday arrin runtii aad loo soo dhaweeyay aadna loogu farxay taasna waxa weeye arrin xafiiskani hawlaha uu qabanayo ay ka mid yihiin Somaliland socotay sidiiro socotay sidiiro sakana sanada badan saharka
ay sugaysaan insaadaashu wacan tahay sawirkeeda siiyo insaadaashu wacan tahay sawirkeeda siiyo anigoo ah Khadra Ismaaciil xisbiga ucud ee laanta Australia xoog baan ugu faraxsanahay caawa daahfurka xafladan aan isku dhimday Mission Australia xafiiskan waa xafiis xoog loogu baahnaa waana xafiis wax qabad u noqon doona wadankii jaaliyada Somaliland ee Australiana waxay mudan yihiin inay xoog ula shaqeeyaan anigoo la yiraahdo Khadra Cali Giire waxaan congratulate garanayaa Sharmaake Balashire. I hope in a future projects Cargo is successful yihiin. And congratulations. This is a big accomplishment for our community and yourself. And I'd like to shout out to Somaliland and its people. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay caawa xafladan aan ka soo qayb galnay aad ku qurux badan ee ku daafurayno safaaradda Somaliland ee Australia waxaana noqon doontaa mustaqbalka safaaradda Somaliland insha Allah taala aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa Sharmaarka Nuuriyey oo xafladan isku soo dubariday aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan leenahay weel dhan saaxiib aad iyo aad shaqo aad u fiican ayaad qabatay waxaan rajaynayaa mustaqbalka in aad noqoto safiirka Somaliland ee dalka Australia aad iyo aad maasantiin magacayga walaal waxa la yiraahdaa Leila Umar Guuleed waxaan caawa aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay xafladda furitaanka xafiiskan Somaliland aan hambalyeynaya walaalkayga qaaliga ah Sharmaarka Yuusuf Nuur Master Balashire farxad weyn bay noo tahay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa hawsha adag uu galay inuu ilaahay ku guuleeyo uu dadaalay waana ku faraxsanahay waana garab taaganahay inta maqan nasalaantoodii baan soo gudbinaynaa reer Somaliland oo dhan waan u hambalyeynaa guusha ay gaareen reer Somaliland ka degan Australia magacaygu waa Cabdulqaadir Maxamed Axmed anigoo ku hadlaya jaaliyada Somaliland ee xagan Australia gaar ahaan magaalada Melbourne anigoo haddana ku sii hadlay hadaan ahay fanaaniinta reer Australia ee Somaliland ee xagan u joogta waxaan hambalyo u dirayaa saaxiibkay Balashire oo maanta xafiis nooga furay xagan Australia taasoo isku xiri doonta Australia iyo Somaliland hambalyo leen aad baa mahadsantahay halkan horta waxaan caawa ugu mahadinayaa amba furitaanka xafiiskan cusub ee Somaliland laga furay magaalada Melbourne ayaan ugu hambalinayaa Maxamed Xuseen Sharmaake Balashire oo aad iyo aad ugu dadaalay inuu xafiiskan furo waxa xafiiskii horeeyay laga furo Australia weeyaan marka aad baan u hambalinayaa hambalyo ayaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigoo ah Mustafa Bukar Harun waxaan u hambalyeeyaa Balashire Master Sharmaarke Yuusuf Nuur oo hawl aad iyo aad u fiican qabtay qaranka Somaliland u qabtay jaaliyadaha kale ee dibadda joogana waxaan ku baraarujinayaa inay sidiisoo kale dadaalaan sidii Somaliland ictiraaf loogu heli lahaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa hawl fiican buu qabtay waanu garab taagannahay anigoo la yidhaahdo Sacaad Ibraahim Yuusuf gudoomiyaha ururka wadani garabka haweenka anigoo ah waxaan halkaa mahadnaq iyo sharaf uga jeedinayaa aan u hambalyeynayaa Sharmaake Yuusuf waxaan leeyahay hambalyo السلام عليكم أنا مقعد وياها سعاد أحمد نور وقرب كهوين كلمية مالبون وحن صلان آدي آد وقالي أودري من حوينها جمهورية الصوماليلاند أحمد محمد سيراني يا مرودي سقالقة يا مدحوينك حقين كي حاسكسة يا دمان قولها وسير هذا وكيل هذا قولها قورتي ده قولها بارلمانته دما أي شعب وينها الصوماليلاند وحن لا يهمبليو حفيزك عصب يا لقفر مالبون وحن همبليين يا قدوميها حفيزك شرماكه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جو مقعي بها عاش عبد الله عبدي وحنا هكذا وهم بلينا يا ولكن محمد حسين وحنا هاي congratulation حفيزك عصب على قفر مقالة ميلبورن بسم الله الرحمن الرحيم أنا جو مقعي بها أحمد عيسى نور وحن رنتي هذه هذا فرحسنا هاي caawa xafladan dabaaldega aan ugu dabaaldegayno furitaanka xafiiska Somaliland Australia Mission waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Universal TV oo runtii aad iyo aad ah TV-ga qura Australia ku hawlan
arrimaha bulshada guud ahaan dadka afka Soomaaliga ku hadla oo iyo uu number 1 ka yahay suxufiga weyne Mr Bafo oo runtii maalin walba iyo habeen walba u taagan arrimaha bulshada waxaan leeyahay adiguna hawshaada halka ka sii wad aad iyo aad baa mahadsantiin السلام عليكم أنا كوه هالضياء مقع دنيرة مقع يجوا يا لحسين يوسف وحنا هكذا هنبريان لسوكو بكرنا نقدر يا شماكة يوسف نوريي وحنا هكذا نخسلام يا مقع ورسم دحوينها جمهورية الصومال أحمد محمد سيراني يوم مرودي سأمن ورس مدحون حجينك صدق القدومية والرضا قرنك waxaan leeyahay hambaliyo waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliland reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan gaar ahaan madaxweynaha iyo dhammaan shacabka reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan waxaan halkan aan ugu hambaliyeynayaa inaan taageersanahay markastana aan garab taaganahay taageeradooda iyo wax qabsigoodaba halkan waxaa inoogu dhamaaday barnaamijkii